بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو عصب مانتا إن شاء الله مانتا وحكا هدلينا إن شاء الله قفل بوحو جعلي هاي إنه كعبدا قدهيدا كتكدو قفل بوحو جعلي هنا البابك كعبدا الله فرو قفل بمسلم البابك كعبدا هنا الله فرو وقدهيدا كتكدو مانتا إن شاء الله ما الوقت حكا هدلينا وقدقمتو إنا البابك كعبدا الله فري وأنا قدهيدا كتكتي maanta waxaa ka hadlaynaa insha Allah meesha la dhaho al-Xatiim waxa meeshan yar oo saan oo xiran oo saddexdaas nal oo calaamadaha oo ku taalo ka hadlaynaa maanta okay waxaana ka hadlaynaa meeshaas waxa ku saabsan lix shay maanta ka hadlaynaa insha Allah waxa ugu horeysana waxa waaye number 1 waxa waaye magaca meeshaas magaceedu waxa lahaa al-Xatiim waxa loogu baxshay al-Xatiim waqtigu rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo 35 sano jiray 18 قبل الهجرة رس قريش إمادي كعبة أو وحيال بدن كدومين أو نو بيها نكسو فتهادين أو أيضا أن مركز لهن كعبة أو نو دومينينا أيضا أن وادسينا وحي كل شيء كل جودة إني كينان لعق حلال يعني لعق ربا كجرين لعق أو مال أو ظالم لقصو قادم إيه لعق بغي يعني زانيد لعق كذا مهر كذا أو لو قادم إيه كل شيء مركز بلابين اسمها إني لسان ماشى waxaa lacagta ku yaraat lacagta markuu ku yaraado waxay dhaheen sideeda u dhisayna dhismaha caadiga loo dhisaa laakiin meesha oo ziyaadada oo kacbadana ka tirsan oo wadin lacagteeda inay ku sameeyaan markaas waxay ku xireen oo daanyar ay ku xireen calaamadan yar loogu xigay markaas loo baxshay al-Xijr al-Xatiim number 1 waa garanay magaca waxa lahaa al-Xatiim number 2 qisada maxaa meeshaas oo loogu baxshay kacbada waa garanay number 3 waxa garanaynaa see waa dhismaha saa u fahamno waxa saana sameeyay saa u fahamno darbiga kacbada waa kan darbiga kacbada oo gudaha waa kan xijirkan waa kan meesha xiran oo yar oo xiran waa kan waxa waay laba albaab leedahay albaab inta laga soo galo albaabna inta mar walba xiran laba albaab ay leedahay okay hadaa balacigiisa dharkiisa wixiisa wuxuu ku saabsan garanno saddex nal waa nal inta ku yaala nal kalena inta ku yaala nal kalena waa kan saddex nal hadaa u jeedin xagga waa kuwaas okay هذا هدارنا دربك بلعجيسة دركيسة يعني أنت إنه دركيسة هل متر صدّن يصدح واي بلعجيسة أنتوا اللي إجيها يعني بلع أنتوا دربك اللي إجيها وحواي هل متر كونتون إيشان لبدأ الباب أنتوا قد حيصو وحواي 6 متر تضباطن تضبط وهكذا الحطيم حجر إسماعيل الباب كواكاس الكواد الباب كلابات نالكن شيء جاي نالك لباد نالكن صدحنا إن شاء الله ستوري بسنة شيء دوم ميزاب كبيرة كسر دابنا ما شاء الله ماشي من دربجة كعبضة إلى دربجة ماشي قدام بيسا وحواي 6 متر أفرتن إليه أنت كعبضة كأه أنت صورن حدود دورن كعبضة معها أنت كعبضة كأه 1 متر لباتن يصدح أوكي واي ماشي هذا قال أني بدها هذا قال سيكو قرنا سيكو فهمه labadaas nal calaamadaha nalka loo maleeyo ma aha nal oo sharaxaad labada nal hadaa saan loo dhigo labada nal nalka inta ku yaalo nalka inta ku yaalo waxa ka dambeeya kacbada ma ah waxa ka horeeyo dhinaca kacbada ka jiro 3 mitir 23 ayada waxa waaye kacbada ina gudaheeda ku jirtid marka gudaha hada soo gashid waxa la horta labada saf ugu horeysa lagu tukadaa gadaal ma la aado khaasatan haweenka hadii soo galaan soo wareeg inta imo dhinacaan isku cariiri dhinacaan waa laanu gadaal ma ka tirsano hore waale bas dadka ma fahansan labada nalna waxa loo maleeyaa labadaas nalka xagga ku yaalo geeskaas nalka geeskaas ku yaalo sharaxaada loo maleeyaa sharaxaad ma aha meesha ku egtahay waaye oo calaamada lagu ekeysiyay okay waa kana hadda meesha sheegay oo aydan la nadiifiyay imaamka loo diyaarinaa inuu salaada soo galo marka meesha wani sheegay waa tan xijir Ismaaciil Allah waa kan meesha إذا إبرة وديارنا رابع هذا الفيلا إن شاء الله. أوكي أنت سوا قرنة أفر فضلي سمحوا ماشى سوايا هذا قالوا يعني محو different كي هي مالها كلام ساج كنا وقلت كذا وحواي فضل جيدا وحواي قطعة كعبة كتر سنة وكلا واي أنا أذو حواي الباب كعبة جوده هذا لجوف فرق كلا أو كنت كتي جوده هذا واي حديث كأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحيد جعلاد إني كعبة جوده هذا قشوا رسول صلى الله عليه وسلم وشكته مرك رسول صلى الله عليه وسلم قعنت هذا إنه قصة قبطي وكان الحجر جوده ماشى الحجر جوده هذا كاني مركز وكلها كنت كماشان كعبة وكتر سنتهي
marka fadligeeda waxa waaye adoo kacbada gudaheeda lagu furo waaye laba ragca sunna haddaa ku tukatid adoo kacbada gudaheeda ku tukata waaye ibnu cabaas xataa radia allahu canhu wuxuu dhehi jiray salluu salaata alakhyaar واشربوا ماء الابرار صلاه الاخيار waxa way labada ragco oo ku tukanaysid gudaheeda meeshaas salaat maa washrabu maa al-abrar wuxuu ka wadaa biyaha zamzamka albaabka kacbadana mar walba ma lagu furi karo laakiin meeshaas mar walba ku furan tahay ninka haweenka ilmaha qof walba waa gali karaa waqtiga rabtidna waa gali kartaa wax fududna waaye qofka marka waa fiican tahay inuu ku dadaalo meeshaas inuu galo oo waqtiga fiican inuu qiyaasto meeshaas oo galo okay shan qofkii meeshaas inuu helo nasiib ku helo inuu meeshaas galay waxa laga rabaa aadaab uu meeshaas oo galo horta meeshaas waxa la xiraa salaada adinka ka hor 30 daqiiqo maalmaha oo normaalka ah maalmaha cariiriga jirana 45 daqiiqo salaada ka hor adinka la xiraa dadka dhan waa laga soo bixinaa leeyahay ma lagu tukan karo salaada meesha salaada oo fardiga laga wadaa salaada sunnada waa ku tukan kartaa waqtiga rabtid meeshaas yar oo dhahaysid 6 mar maalintii la dhaqaa salaad walbo mar walba waa la dhaqaa subaxina 9 am markii tahane markaasna waa la dhaqaa okay qofka meeshaas markuu galana inuu dareemo waa horta meel fiican inuu meel barakeysan inuu ku jiro oo kacbada gudaheeda meesha dadku u soo tukadaan baytullah inuu ku dhex jiro marka inuu dadka cariiriyo ma la rabo marka adabteeda waxa waaye ninka inuu haweenka cariirinin haweenkana inuu cariirin nimanka codkana kor loo qaadin ducadana meesha oo cod oo aad loo qaadin waxa rabtid lagu duceystaa labada rakac marka tukatid waxa rabtid ku duceyso ana ku daahir meesha walaalahaada sida muslimka maxaa lahaa oo rabaan inuu ku tukadaan meesha oo ku tuko okay waqtiyaasha ugu fiicanna waxa waaye horta haweenka salaat al-maghrib iyo salaat al-isha waqtigaas ma u fiicno waxa u fiican subaxi iyo waxa u fiican habeenkii bacda al-isha waqtigaas ugu fiican waqtiyaasha kale waa cariiri waana laga soo dhexbixinaa leena tawaafka waxa la rabaa haweenka in gadaal la geeyo waay marka dhaqsa looga soo bixinaa marka familiga hadii kula socdaan waxa fiican salaad subax kadib iyo cishaha kadib waqtigaas waqtiyaasha ugu fiican ninkan waqtigu rabo gali karaa laakiin cariiriga waqtigu asaga u jeedo oo qiyaasi karo inuu galo waayo haduu asaga oo awoodo inuu galo lix been laga alfa meeshaasna waa jirtaa oo inta badan dadka sheegaan khaasatan diinta inta ka soo horjeedo waxay dhahaan meeshaas waxa waaye waxa ku duugan nabi إسماعيل عليه السلام هوي سهاجر وحسن وابين حتى مقع حجر إسماعيل إن الله غلط واي وحفي عن الحطيم إن الله مسيء الحجر وحنا واي منو كدوغنا وقتي هو أصلا محلها أو لسمية ماشى سنة أو كعبة لجيري وقتي قص وحواي قريش وقتي كذا إسماعيل عليه السلام وقتي قص ما قص نور الإنسان هي أو مركز محلها وحس عقلي جلا هنا ما غلطنا واي وحكدوغن ماشى سنة مجرته إلى هنا هرتم إسماعيل عليه السلام hooyadiisa Makka waa ku duugan laakiin qabrigeeda qof yaqaan oo dhahaaya qabrigeeda meeshaas ku yaala ma leh meeshaasna al-Hijrna waxa ka dhacday qiso aad u yaab badan waxa isku imaadeen Safwan bin Umayya iyo Umayr bin Wahb laba saxaabi noqon doonaan kadib markii isku imaadeen waxay isku imaadeen qaswad Badr gadaasheeda markii dhamaatay qaswad Badr ee isku imaadeen al-Hijr meeshaan waa meesha oo maanta ka hadlayno al-Hijr kadib kiligooda labadooda ay ku fadhiyaan oo qof ogeyn Safwan bin Umayya abiisa lagu dilay غزوة بدر وانا حنقسنا آذو حنقسنا عمير بن وهبنا ويلكيسا على أفضوبتي أو نلع رسول صلى الله عليه وسلم مدينة كهستان عمير هذا هايو وحو دهاي هدا أو المير ير أو لعب سنين أو أنا الدين اللي يقول له هين وحا آذي لها محمد صلى الله عليه وسلم رسولك كوضا وانا سودري لها صفوان اسم مركي وحو دا وانا حنقسنا لأنه أبي سأل الدلي وحو أرقل هاي بح دين تادنا أنا كديباي المها هذا وإلمهي أرد سودي النبي صلى الله عليه وسلم مركز ninkii isla markii seeftiisu qaatay Madiina Munawwara uu dhaqaaqay Madiina Munawwara markuu aaday waxa ka hor imaaday Umar bin Khattab radiyallahu anhu uuna yaqaana Umayr wuxuu ahaa nin aad u aqli badan oo maxallaha oo xiilad badan maxaa ku keenay meeshaan uu dhahay Umar bin Khattab dhahay marka wuxuu dhahay rasuulka u socdaa wiilkii liga heesto arintiisa arabaa ina fiiriyo marka wuxuu ku dhahay ansaartu Umar bin Khattab la hadlo wuxuu dhahay caduuga Ilaahay ka ilaaliya rasuulka Ilaahay رسول صلى الله عليه وسلم وأتجا رسول صلى الله عليه وسلم مركو أتجا كو أرك مركز صدها عمت صباحا رسول صلى الله عليه وسلم حدها إلهي حنا وجبد لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو فريستي ودهاي محاكو كان ودهاي رسول صلى الله عليه وسلم وعمير دهاي محاكو كان وحودا waxa ay keenay wiilkay oo liiga heesto marka wuxuu rasuulka sallallahu alayhi wasallam seefta maxaa u wadataa waayahay oo seefta u soo qaadatay marka wuxuu seefta maxay noo tartay dhahay qaswad badr waa balan laga raayay marka maxay noo tartay asaga xinin xiilad badan waay marka rasuulka sallallahu alayhi wasallam inuu soo dhawaado dhahay adi iyo Safwan ibn Umayya misku imaanano al-Hijr meeshaan al-Hijr oo dhex fadhiisateen kiligiina markaas u sheegay arinta عمير ويا سبحان الله إسلام يشهد وحده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله
Safwaan bin Umayyana kadibna Fatx Makka uu islaamay. Marka qisadaas waxa waa meeshii ka dhacday Al-Hijr waay. Intaasaa maanta ku ekeenana insha Allah. Marka kadibna insha Allah fiidiyood cusubna insha Allah waa soo gelin doonaa. Marka fiidiyaasha ka horeysana fiiriya oo hadda ka hor soo geliyay. kanaalkana subscribe samee marka intaasaa maanta insha Allah oo ku dadaala insha Allah inaa oo nin ku faa'iideeyo marka ilaahay fududeeyo insha Allah ninkada kulli ilaahay idin soo fududeeyo inaa meeshaan imaadiin subhanaka allahumma bihamdika astaghfiruka wa atuubu ilayk. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.